waxaan haystaa 24 hours si aan u gaaro 1k subscribers waxaan samayn doonaa everything aan samayn karo si aan u gaaro 1k subscribers aan waxaa jiro hal shay oo iga caawin karo inaan gaaro goalkaas waana YouTube shorts because of long form testing koodaba qaadanayo 24 hour iyo ka badan so let's make the first video. Okay, video ko na dhamaaday 1 2 3 go. Waa soo dhigay videogii ugu horeeyay ee challenge-ga laakiin haddii uu keeni waayo subscribers badan ama views waxaa qaadan doonaa go'aankii ugu adkaa ee challenge-ga laakiin videogan waxa uu yaalaa ku dhowaad 20 hours hadda waa eegi doonaa analyze-ka videogan laakiin waxaa ka qaadan doonaa insha Allah analyze-kan haddii aan fiirino kadib go'aanku waa bedeli doonaa insha Allah. Let's go. Zero subscribers. Itaa 100 views muna gaarin. I'm already lose. Wallahi. Laakiin ina posto ina video kale sameeyo shorts viral ina remix sameeyo waay sidaan hal ima 24 hour kaliya waxa ka soo horeeyay adiga 4 hours tan hal ma ina hal raadiyo waay algorithm-ku waxa iga dhigay Lamin Jamal vs Saudi Arabia ina hal raadiyo waa ina is badbaadiyo waay so let's go. waxa YouTube ka raadin doonaa viral shorts oo mrbeast ama ishow speeds adiga YouTubers-ka waaweyn si aan u helo viral shorts oo badbaadin karo 4 hour ii harsan so waxaa research garayn doonaa viral shorts oo adiga high quality ah kadibna remix ku samayn doonaa ama reaction ku samayn doonaa 4 saacadood ii harsan adiga at least waxa gelin doonaa 5 ama adiga 7 shorts aan dhigi doonaa si aan natiijo u helo because markii hore aan soo dhigay shortigii ugu horeeyay aniga kuma kalsooneen hal short because hal video lagama yaabo inuu ku keeno ama mostly kuma keeno views ama subscribers laakiin shorts-ka waa badin doonaa si aan opportunity-ga double uga dhigo so let's go. Okay, waxaan helay adiga 5 videos oo mrbeast iyo ishow speed maadaama iyagu yihiin dadka ugu badan ee shorts-kooda viral noqdaan YouTubers kala jiro laakiin hadda maanta iyaga u doortay ina shorts-kan ka sameeyo insha Allah so let's go. So shortiga koowaad waxa ka dhigi doona mid adiga speed ku furan oo dhammaan galabyadiisana wato haddii ay tahay adiga body dhammaan videogan ama video shortigan insha Allah waa rajeyn doona inuu viral noqdo so shortiga waxa ka dhigi doona qaladkan yar waxa uu dilay malaayiin small YouTubers content creators-ka waxay copy garayaan mrbeast editing-kiisa laakiin mrbeast waxa guuleysta ka dhigay ma aha edit-ka ee waa inuu fahmo daawadayaashiisa waxay rabaan inay arkaan. Okay, haddana videogan 5 ma 2 second ka dhigi doonaa edit-kiisa maadaama shorts-ka ay badan yihiin waqtigan ay yahay insha Allah. Okay, edit-ku waa soo dhameeyay haddana waxa u gudgali doonaa shortiga higa ama clipka higa insha Allah. Let's go. Ishow speed wuxuu jibiyay rule kasta u yaala YouTube-ka dadka badankooda waxay yiraahdaan wuu waalan yahay ama wuu u qeyli badan yahay laakiin taas waa waxa ka dhigay inuu mar kasta maskaxda uu ku jiro because of dadku waxay jecel yihiin hayaado so marnaha uu ogolaanin viewers-kaaga inay nastaan subscribe edit sidaas aan looma baahno so clipska waxa yara ka dhigi doona insha Allah ma dheerayn doona okay videoga editkiisa waa noo dhamaaday haddana waxa u gudbi doona shortiga higa saaxiibayaal sababta aan sidaan u samaynayo waxa waaye mrbeast viral shorts ay jiro oo aadi ah remix ku samayn karto ama aadi copy gareyn karto laakiin aniga midkay waxa waaye growth waaye so marka in aan iyo growth-ka meeshaan ka soo galay sidaas intaan u samaynayo laakiin haddii image-ka waxyaabo kale uu yahay adiga waa samayn kartaa lagana yaabaa inaad ku fikirayso oo kale ninkan shorts-kan qaabkan waxa uu dhigay so
aniga sababta u samaynayo waxaa waaye midkayga inaan sidaan u socdo waaye so dhinacaan angalka growth inaan ka fiiriyo aan rabaa no adiga meesha so shortiga higa waxaa ka dhigi doonaa hubgiisa ama introga waxaa ka dhigi doonaa English inta kale explanationkan waxaa ka dhigi doonaa Somalia. mrbeast will never start video like this. Hey guys, welcome back. taasna mostly waxay ku keentaa inay viewerska waqti hore ay ka tagaan. mrbeastna waxa uu si degdeg ah ku tusaa sababta aad u daawanayso videogiisa. So haddana videogan editkiisa waxaa ka dhigi doonaa 5 seconds inshallah. Let's go. Okay, editku wuu dhamaaday. haddana waxaa u gudbi doonaa shortiga higa. tani waa sababta ishow viewerskiisa marna videoskiisa u dhaafin. ishow ma dhiso kaliya video, waxa uu dhisaa community. dhammaan viewerskiisa waxay moodaan inay qayb ka yihiin safarkiisa. Subscribe. Okay, waxa u soo gudubnay shortigii ugu dambeeyay challenge-ga. ma gaari karaa 1k subscribers? hadda waxaan haystaa 620 subscribers. hadafkayganu waxa waa inaan gaaro 1k subscribers kaliya 24 hours. ma noqon kartaa subscribe-ka higa ee iga caawin doono inaan gaaro 1k subscribers? Please subscribe. Okay, editkiisa 5 seconds aan ka dhigno inshallah. challenge-ga waa soo dhameeyay. saaxiibayaal markii hore waxaan rabay inaan mid kasta aan soo dhigo kadibna analyse-kiisa ku laabto aan waxyaabo ka bedbedelo kadibna aan videoga soo dhigo, laakiin way ii suurtagali waysay because of kaliya waxaan haystay 4 hours. 4 hoursna iguma filno inaan video soo dhigo kadibna analyse-kiisa ku laabto haddana video kale soo duubo kadib soo dhigo. So kadibna go-aanka waxaa ka dhigay inaan hal mar duubo kadibna hal mar soo wada dhigo. So hadda waxaan haystaa 620 subscribers. inshallah waan rajay doonaa inaan isbuucan ama videogan kadib aan gaari doono 1k subscribers. haddii aad horey soo subscribe gareyn waxaa ka codsan lahaa inaad soo subscribe gareyso. videogan intaa una kusoo gabagabayn doonaa haddii aad ka mid tahay kuwii hore. Peace.